بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabta qiimaha badan leh YouTube channel-ka aad daawanaysaan waa iga official magacayguna waa Cabdishiid Ege. maanta insha Allah waxaynu ka warrami doonaa sidii u qori lahayd CV qurux badan oo ka caawiya inaad ku guuleysato shaqo insha Allah. mar badan caqabado badan ayaa dhalinyarta ka haysata ama dad badan ka haysata inay qoraan CV-gaas oo horseedi kara inay shaqo qurux badan ku soo baxaan. waxa laga yaabaa inaad marar badan aragto shaqooyin aad awood u leedahay oo qaban karto ama aad xirfadeedii leedahay, balse markaad CV-gii dirto aad ogaato ama aad xagga dambe ka ogaato in aan lagu xuladin amaba aan at least ugu yaraan lagu yeedhin oo aanad ka mid noqonin dadkii loo yeedhiyay ama imtixaan hala galo ama interview hala galo. mushkiladda ku haysata ayaa markaa waxa ay noqonaysaa sida loo qorayo CV-ga. marka insha Allah waxaan rajeynayaa maanta inaynu mushkiladaas soo gabagabeyn doono. laga bilaabo maanta inaad awood u yeelan doonto biidnillah inaad qorto a winning CV guuleysta oo ku horseeda inaad shaqo qurux badan insha Allah ku guuleysato. intaanad CV qorin waxa laga maarmaana inaad sameyso talaabooyin yaryar. talaabada ugu horeysa ee loo baahan inaad sameyso waxa weeyaan extensive research. inaad cilmi baaris ku sameyso available jobs in the job market, shaqooyinka diyaarka ku ah suuqa shaqada. waxaad ogaataa maalin kasta intaasoo boqol oo shaqo ama intaasoo boqol oo position ayaa la soo xayisiiya. adigoo takhasus baad leedahay ama skills iyo xirfad baad leedahay. xirfadaada shaqooyinka la xiriira ee available ka ee u baahan markaad extensive research sameyso waxaad helaysaa maxay informationkaas iyo macluumaadkaas oo ku siinaya xirfadan looga baahan yahay positionka la xayisiinayo. isla markaana macluumaadka kale ee helaysa waxaa kamid ah qualificationska iyo khibradaha loo baahan yahay, duties iyo responsibilitieska qofka loo baahan yahay uu qabanayo, isla markaana meelaha uu ka shaqeynayo iyo waxyaabaha lagu xulanayo. marka haddii aad cilmi baaris xooggan sameyso macluumaad baad helaysaa. macluumaadkaasina wuxuu kuu sahlayaa inaad si fiican uga diyaar garowdo sidii aad u qori lahayd CV-ga. waana halka ay dadku ku kala hadhaan. dadka intooda ugu badani CV way yaqaanaan sida loo qoro, laakiin waxay iska indhatiraan ama ay ilaabaan inay macluumaadka loo baahan yahay raadiyaan, research inay ku sameeyaan. xataa company-ga ama organization-ka aad CV-ga u qoranayso waxaad u baahan tahay inaad research ku sameyso, waxa uu qabto, waxa uu ka shaqeeyo, meelaha uu ka shaqeeyo, inta shaqaale u shaqeysa, levelka uu taagan yahay ama heerka uu ka marayo, profitkiisu, yacni macluumaad ku saabsan. si beri ka maalin haddii lagu weydiiyo macluumaad ku saabsan shirkadda ama maxaad noogu soo biiraysaa ama maxaad nagu dooratay inaad nagu soo biirto, su-aalaha noocaas oo kale hadhow lagu weydiinaya. marka waxaad u baahan tahay iyaga laftirkooda inaad research ku sameyso si aad information iyo xog ugu saabsan aad u heli karto. sidoo kale waxaad ogaanaysaa skills iyo qualificationska recruiterska iyo dadkan shaqaaleysiinaya ay u baahan yihiin. eegood qiyaasaysa waxaad leedahay xirfadahan baa loo baahan yahay soo maaha, miyaan leeyahay? haddaanan lahayn ma apply gareynayo, CV-na uma qorayo. haddii aan leeyahayna yes waan apply gareynayaa, waan codsanayaa, waan dirayaa, CV-ga ugu quruxda badanna waan qoraya. qualificationskuna waxa weeyaan shahaadooyinka iyo dee maaragtay trainingska aan qaatay iyo tababarada aan qaatay ee aan sito ii saamaxaya inaan positionka kusoo bixi karo. marka wixii ama waa xirfado gacantiiba laga qabanaya oo waxay u baahan tahay xirfad oo skills oo hard skills bay u baahan tahay ama soft skills bay u baahan tahay oo qualifications oo dee aqoon bay u baahan tahay. marka haddaad labadiiba isku darsatayna dee faliila alxamd. marka maxaad u baahan tahay marka ugu horeysa research inaad sameyso. researchka macluumaad baad ku soo helaysaa, deetana khibradaadii baad eegaysaa iyo aqoontii aad lahayd ma leedahay oo ma ku apply gareyn kartaa shaqadan. haddii jawaabtu marka haa kusoo baxdo then you can do waad sameynaysaa, haddii kalena you won't ma sameynaysid. haddii aad ku guuldareysatay inaad raadiso macluumaad la xiriira shaqada waxa aad yacni ay taasi ku horseedaysaa inaad qorto maxay poor CV aad iyo aad u maaragtay aan u guuleysanin oo guuldareysta. isla markaasina waxaa laga yaabaa in ay taasina ku horseedo inaad qorto unwanted skills and qualifications, khibrado iyo xirfado aan loo baahnayn oo aanay shaqadani u baahnayn. marka maxaa lagu leeyahay intaanad waxbaba qorin waxaad raadisaa macluumaad ku saabsan shaqada iyo cidda aad shaqada ka rabto. macluumaadkeeda raadi. waa talaabada ugu horeysa ee intaanad CV-ba qorin aad qaadayso. haddaba markaad macluumaadkii soo hesho waad soo fadhiisanaysaa miiskaaga yaraa baad soo fadhiisanaysaa, kadibna you're getting to start inaad CV-ga qorto ayaad u baahanaysaa. CV-ga qoridiisa waxaa kaa caawin karaa inaad isticmaasho MS Word
ama Microsoft Word ama Google Docs ama Google Documents waxaan la dhahdo labadaniba waa laba aad iyo aad u fiican oo maaragtay xataa waxay leeyihiin templates ama kuwa diyaarsan CV diyaarsan oo aad ku bedbedeli karto oo aad iyo aad u qurux badan for example imko kale Microsoft Word 16 oo kale dad isticmaalayso wuu leeyahay templates kaas Google Docs kuna waxaad ku raadinaysaa shaqada aad dalbanayso kadibna wuxuu ku siinayaa yani CV template ama mid aad ku dul bedbedelan karto ayuu ku siinayaa marka just labada mid ka doonto isticmaal computerkaaga ka isticmaal si aad ugu diyaariso maxay CV-gaaga qodobka kale in doonayna ogaana waxa weeyaan fonts ka isticmaalaysa ha ahaadaan black and white yani warqada wax colors ah ku sameeynin fartu madow ha noqoto warqaduna cadaan ha ahaato waa laga yaabaa inay asxaabta qaar yiraahdaan waxaan soo jiideynaa indhaha dadka akhrisanaya mararka qaar colorska faraha badan leh warqada aad ku qorayso waxay keenaysaa inay aad u adkaato in la akhriyo qoraalada ku qoran colorska ka dambeeya marka waxba ha isku dayin inaad maaragtay colors iyo waxyaabaha raacayso just waxaad xoojisaa oo aad iyo aad u xoojisaa inaad maaragtay waxaad qoraysaa oo macno yeesho oo meaning yeesho isla markaana fartaadu ay madow ahaato warqaduna ay white ahaato taas ugu qurux badan waana sida professionalka ee loo diyaariyo again length ama inta leegaysiinaysa CV-ga run ahaantii ma jiro dee wax la isku raacayo lagu oranayo intaasoo page ka dhig CV-gaaga laakiin maadaama dadkan wax shaqaalaysiinaya ay intaasoo 100 oo CV maalin kasta helayaan waqti badan oo ay ku lumiyaan uma baahna marka just waxaad sida ugu yar ee ugu macquulsan ayaad markaa u qoraysaa CV-gaaga for example 2 page oo kala ka dhigaysaa iyo 1 page oo application letter casharada dambe insha Allah ku eegi doona sida loo qoro application letterka iyo waxyaabaha ka koobantay laakiin CV-gaagu ugu yaraan 2 page waa inuu noqdaa si maaragtay macluumaadka ay aad u koobnaadaan isla markaana si yar fudud loo akhrisan karo waqti yar fududna lagu dhameyn karo macluumaadkaaga marka be precise noqo soo koob laakiin waxba ka tagan xirfadahaaga iyo aqoontaada dhamaan ha ka muuqdaan inta ugu yar ugu macquulsana CV-gaaga si ha ahaado kale waxa weeyaan inaad CV-gaaga heading isu samayso oo macnaheedu tahay inaad kala jarjarto oo maaragtay tusaale ahaan oo kale hadii aad qorayso qaybta ugu sareysa profile kala dhaahdo work experience ki education ki magaranaysa inaad kala xadxadayso oo maaragtay aad heading u kala samayso ciwaan u kala samaysato ciwaanadaas waxay aad iyo aad u sahlayaan in lagu socon karo oo qofka akhrinaya uu kula socon karo isla markaana yani waxaaga isku dhaxdaadsanaanin oo aan adkaynin in la akhriyo marka maxaad u baahantay inaad ciwaano ku kala saarto ayaad u baahantay CV-ga markaad qorayso isticmaal ciwaanada oo ciwaano ku kala saar si qofka akhrinaya dee uu si yar fudud oo raaxo leh uu akhriyo marka intaasina waa marka aad diyaarinayso CV-ga haddaba imika waxaynu eegaynaa inta waxa ka dambaysa structure-kii uu qaadanay CV-gu maxaa lagu qorayaa CV-ga number 1 waxa lagu qorayaa name and address xagga ugu sareysa ee midigta ayaa waxaad ku qoraysaa magacaaga iyo addresskaaga magacaagu full name ayuu noqonayaa ama labada magac ugu horeeya addresskuna de waxa noqonayaa telefonkaaga iyo emailkaaga iyo magaalada aad joogto hadii loo baahdo marka intaas waxay noqonaysaa xagga sare ee midigta ee warqada ay ku qormaysaa taasi waxay ku sahlaysaa in si yar fudud macluumaadkaaga loo heli karo si yar fududna lagu la soo xiriiri karo yani waqtiyadan dambena ee casrigaana aad bay u xoogan tahay bariga hore waxa la sameyn jiray envelope oo lagu riday CV-ga ayaa dusha laga qori jiray laakiin imika CV-ga dhakadiisa ayaa lagu qorayaa name-ka iyo address-ka qodobka labaad ee ku qoraysa waxa weeyaan professional profile waa hal paragraph oo snapshot ah oo macnaha yani soo jiidanaya isha dadka wax shaqaalaysiya oo adiga kugu saabsan waxaad u sheegaysaa qofka ku shaqaalaysiinaya sababta uu ku xulanayo adiga iyo ujeedada ka dambaysa CV-gan u qorayso waa maxay ujeedada CV-gan u soo qoraysaa iyo sababana ku xulana adiga oo maxaad u malaynaysaa inaad tahay qofkii aan anagu xulanaynay maxaan kugu xulanaa marka iska dhaadhici yani isbar qofka ku shaqaalaysiinaya isla markiibana waa inay ishiisa soo jiidataa oo snapshot aad isku dhufataa yani hal sawir iska bixi isku sawir qofka ku akhrinaya ilaa adigu ma hor fadhidid oo daysku ma sharaxaysid waa inuu CV-gaagu hadlaa waa inaad ismacnayn karaa isagu waa inuu isagu isku sharaxi karaa
qofkan ku shaqaaleysiinaya marka hal paragraph oo yar oo kooban waxaad ku qoraysaa maxay ujeedada aad CV-ga u qorayso iyo sababta aad u maleynayso in adiga lagu xulanayo ee lagaaga soo dhex xulanayo intaasoo boqol oo qof oo kula tartamaya marka professional profile waa inaad raacayso qodobka kale waxa weeyaan core skills waxa weeyaan xirfadaha aad adigu ku xoogan tahay okay xirfadaha ku xoogan tahay maxaa kamid noqon kara for example IT-ga kale inaad tiraahdo MS Word-ka iyo Excel-ka iyo magaranaysa Outlook-ga ayaan aad iyo aad u aqaanaa xirfadahaas hard skills-ka iyo soft skills-ka labadaba inaad raacayso tusaale ahaan oo kale time management-ka ayaan aad ugu xooganahay waa inaad tiraahdo yani skills-ka iyo xirfadaha shakhsiyan aad adigu leedahay ee core-ka ku ah waliba ee ka dambayso ee aad ku dhaqanto ee aanay cid kale lahayn waayo qof walba Ilaahay wuxuu siiyay xirfado iyo hibooyin u gaar ah marka soo bandhig skills-ka uu qofkani recruiter-ka ama shaqaaleysiiyay uu kugu xulanayo adigoo marka soo qadimaya oo ugu soo horeysiinaya qodobka kale aynu u baahanay inaan ku darno waxa weeyaan work experience waxa weeyaan meelihii aad ka soo shaqeysay and work experience marka la qoray waxa loo qorayaa sida uu kala dambeeyeen okay tii ugu dambeysay waad ugu soo horeysiinaysaa tii ku sii xigtay ilaa kuwii ugu dambeeyay concentration-ka iyo xoogga waxaad saaraysaa positionadii ugu dambeeyay ama meelihii ugu dambeeyay ka soo shaqeysay sababtoo ah cid ku shaqaaleysiinaysa waxay aad u xiiseynayaan meelihii ugu dambeeyay ee update-ka aad ka soo shaqeysay marka isku day inaad kuwii ugu dambeeyay aad maaragtay aad ugu soo horeysiiso kuwa ugu dambeeyay ugu maaragtay ugu wada horeeyna aad maaragtay waqti yar ku lumiso ama aad soo koobto oo tiraahdo halkaana sidoo kale waan ka soo shaqeeyay laakiin xoogga saar meelihii ugu dambeeyay ka soo shaqeysay xooga saar sidoo kale work experience-ka marka la qorayo waxa laga maarmaan ah in loo sameeyo iyadana headings in loo sameeyo oo time-kii iyo waqtigii iyo goobtii aad ka soo shaqeysay iyo duties-kii iyo shaqooyinka aad qabanaysay in la raaciyo si qofka ay ugu sahli karto maxay si qofka recruiter-ka ku shaqaaleysiinay uu si yar oo fudud ku fahmi karo kulana raaci karo una fahmi karo role-kii aad ku lahayd meelihii kala dambeeyay aad ka soo shaqeysay xataa waxaad ku dari kartaa waxyaabihii achievements-ka ahaa aad gaadhay intii aad position-ka haysay waxyaabihii aad u horseeday company-ga aad ka shaqeynaysay markii aad position ka haysay eed adigu ikhtiraacday ee aad ku soo kordhisay ayaad sidoo kale ku dari kartaa sidoo kale work experience-ka haddii aanad meel ka soo shaqeynin ha cabsanin waxaad ku qoran kartaa meel aad voluntary uga soo shaqeysay oo si voluntary oo bilaa lacag aad ku soo shaqeysay magaranaysa teaching skills ama xirfado macallimad ku soo shaqeysay maaha kaliya uun dee kuwan kambaniyada lacagta ku bixiya shaqada caadiga loo doonto in lagaaga baahan inaad qorto laakiin voluntary-ga xataa waad qori kartaa meelaha kale yacni meel kasta oo aad ka soo shaqeysay ama ha noqoto mid lacag lagu siinay ama ha noqoto mid aad training isku qaadanaysa iyo internship waa inaad qorto education-ku waa dee aqoontii aad lahayd aqoontii waxay noqon kartaa kuwii jaamacadaha aad u gashay iyo traininadii ama short courses-ka aad qaadatay marka iyagana ta ugu weyn baad kasoo bilaabsa shahaadada ugu weyn aad haysato ilaa shahaadada ugu yar ee aad qaadatay marka aqoonta intaas ayaad ka qoraysa iyadana qodobka ugu dambeeya qoraysa waxa weeyaan references waxa weeyaan cidii lagala xiriiraya waxa la yiraahdaa waxa jira qodob weyn oo muhiim oo la yiraahdo maxay your past performance is reflects your present performance yani performance-kaaga hore waxa uu ka turjumaya performance-kaaga hadda oo looga jeedo reference-kaaga hore la tixraacaya dadkii hore la soo shaqeynaysay ayaa wax la weydiinaya waxa la leeyahay ka warama halka miyuu ka soo shaqeeyay sidoo ahaa waa laga wareysanaya marka waa laga maarmaan inaad references raaciso laakiin inta ugu badan waxa la dhahdaa reference available on request haddii loo baahdo waan keenaya reference-ka ayaad odhanaysaa muhiim ah marka hore inaad references qorto ilaa lagaaga baahdo oo lagu dhahdo 3 referee soo raaci ama 3 reference soo raaci oo dalab lagu keeno dadka qaar ba waxay iyaguna sidoo kale raaciyaan waxa la dhahdo hobbies and interests laakiin muhiim si aha haddii aad u aragto inay muhiim ku yihiin isla markaana ay macno ku darayaan CV-gaaga ayuun bad raacinaysaa bal hadda baynu eegno sample yar oo kooban oon qayb ka soo qaaday oo CV-gana aan kaaga warramaya ah balindhahaagaan tuso iyo qaabkan u doonayo inuu u eegaado CV-ga maanta wixii ka dambeeya aad u qorayso insha Allah page-ka ugu horeeyaan ku tusayaa waana kan eeg soo ma arkisid halka waxaynu ku qornay dhinaca midigta ee sare waxaynu ku qornay address-kii okay
qofka magaciisii locationkii telefonkiisii emailkiisii wixiisii oo dhan dhinaca sare ee midigta ayuu ku dhacay waa kan professional profile-kii halkan ayaad ku qoraysaa marka paragraph-kii aan kuu sheegay core skills-kii baa ku xiga halkan baad ku qoraysaa career summary ama work experience-kii ayaad iyadana raacinaysaa kadibna education-kii kadibna reference-kii sidaas ayaad u qoraysaa marka eeg headinada aan kuu sheegay waa kuwan marka professional profile-kii waa heading-kaas intaas ka kooban yahay core skills-kii waa heading-ka intaas ka kooban yahay career summary ama work experience-kii waa kan soo ma arkaysid kuwani waa magaranaysaa duties and responsibilities-kii aad ka qabanaysay position-ka iyo waxyaabihii aad kusoo kordhisay company-ga intii aad position-ka haysay xaggani waa address-kaaga soo ma arkaysid marka laga bilaabo maanta insha Allah waxaan kaa rabaa inaad diyaariso CV noocan oo kala ah kaasoo kaa caawin doona in shaqa laaliya shaqadii soo baxdaba aad maaragtay qaban doonto ama aad qabsan doonto oo aad ka faa'iideysan doonto chance-kaasi insha Allah haddii Ilaahay kugu daray calafna aad ku leedahay